بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa maanta sharaf noo ah in golaha wasiirada ay meelmariyeen 9 xubnood oo loo soo diyaariyay inay noqdaan guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa kuwaas oo in la dhiso la rabay 8 sano haddana soo dhaaftay oo maanta golaha wasiirada ay sharaf u noqotay inay meelmariyaan golahaas oo awoodooda dastuuriga lagu sheegay qodobka 111 C misaca kuwaas oo awood u leh inay ka hortagaan baaraan ka daba tagaan musuqmaasuq iyo inay dheliyaan dowlad wanaag wacyigeliyaan ummadeena Soomaaliyeed si ay wadankeena u noqon lahaa wadanka ugu wanaagsan oo hadda ku jiro kaalinta ugu dambeys marka la fiiriyo listiga dalalka musuqmaasuqa markii la fiiriyay 9 xubnood waxaan ku soo xulnay kartidooda way aragnimadooda iyo hufnaantooda waxaan ka qaadnay interview inaan ogaano aqoontooda iyo khibradooda 9 xubnood waxay kala yihiin mudane Maxamed Cabdikariin Ibraahim waa khabiir arrimaha xisaabaadka iyo maamulka mudane Abukaate Cabdiwali Axmed Cumar waa khabiir sharciyada iyo qaanuunka wax badan ka soo shaqeeyay garsoorka dalka mudane Dr. Xasan Khaliif Xasan khabiir asigana shariicada islaamka qaanuunka iyo maaliyadda mudane Abukaate Maxamed Xuseen Xaamud khabiir ku takhasusay shariicada iyo qaanuunka wax badan ka shaqeeyay garsoorka garyaqaan la garanayana ah aqoon sarana u leh arrimaha la xiriira culumta caalamiga marwo Saciido Maxamed Xaashi khabiir ilaalinta xuquuqda aadanaha oo aad u taqaana shuruucda dalka wax badan ka soo shaqeysay arrimaha horumarinta cadaaladda lix mudane Amiin Axmed Sheekh Cabdiraxmaan khabiir arrimaha dhaqaalaha iyo hanti dhowrka mudane Cabdulaahi Sheekh Abuukar khabiir arrimaha maamulka ka hortagga dambiyada iyo baaritaankooda mudane Qadar Axmed Diiriye khabiir oo ku takhasusay asagana arrimaha maamulka wasiir horena soo noqday Saqaal Saamiya Saciid Xuseen khabiir ku takhasustay horumarinta istiraatiijiyada ganacsiga iyo teknoolajiyada 9 xubnooda maanta loo magacaabay guddiga madax bannaan iyo ka hortagga la dagaalanka waxaan u rajaynaynaa insha Allah in baarlamaanka loo gudbiyo baarlamaankana meel mariyo si dalkeena u heli lahaa guddi u madax bannaan inuu wacyigeliyo ka hortago dambiyada la xiriira musuqmaasuqa waana mahadsantiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.